السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مالك استادونك جوكتان وهي تهي حلي أفر ما أنت أفر ما سميسن بلسة ونسو إبسدي حد فيديو أن إذن سميه ينسو قليي أرن بالبلاك إيو سيئي إذا ما ركت خصيصا كهلاي markan video idin soo galiyay video kale astaan aan rabo inaan edit gareeyo waqtigii baa la ii gaaray waan tukaday waan afuray aniga oo afurka dul fadhiya aan waxaan arkay muuqaal aad iyo aad aan uga naxay ilaa haddana shucuurteyda bedelay jaakadana si diyaarsaday inaan hoos u dagaarabay bartii aan muuqaalkaas ku arkay cabaaran fadhiya kursiga waa ka naxay sida hadda ciwaanka baa ku soo aragtay waxaan rabaa inaan ka hadlo run ahaantii aad iyo aad uga naxay waa labada kabal si fiican u wada taqaanaan waa dad ilaahay magac siiyey sharmaake sharmaboy ayaa u taqaanaa iyo malyuumaanka oo ahayd xaaskiisa run ahaantii aad iyo aad ayaan uga naxay ciwaanka sheekada markaa arkay baarisan ku sameeyey waa dhab waxaan arkay oo aan ka naxay oo la leeyahay in sharmaake iyo malyuumaanka ay kala tageen aad iyo aad uga naxay mararka qaar markii aad aragto wax samsin aadan jeclaysan welibana wixii ay haystaan dad adiga aad jeceshahay aad uga naxaysaa run ahaantii aad iyo aad uga naxay weliba khaasatan dumarka aad baa idin salaamaya waxaa ii sheegtaa idinkoo raalli ah kaniinkan bostonor 2 ay ku qoran tahay muxuu qaabilsan yahay muxuu taraa muxuu galaa muxuu sugudaa waa codsi jawaabtiinana muhiim ay tahay asxaabta horta maanta kaniinkaana soo dhigay waxyarka hore weliba asxaabta o dhan arrintiis waa arkay story waa ku arkay aniga naftirkeyga laakiin saas waa fahmi waaye يعني waxaan fahmi waayay noqotay waa arkay laakiin aan weydiiyey weliba khaasatan dumarka su-aasha aan soo weydiiyey waxay ahayd kaniinka muxuu taraa dhammaantoodana waxay ku jawaabeen waa ka hortaga uurka oo weliba inta badan dumarka iyo raggii wax bartay marka hadda su-aashaan waxaan weydiin rabaa ragga ee qaas u tahay haddii xaaskaaga adiga aa qabto oo marwadaada ah oo halaasha aa ku qabto kaniinkaas isticmaasho ama aa ku aragto ama aa qabato go-aan noocee qaadan lahayd ficilsa noocee ah aad sameyn lahayd waxale kaniinkaas aad iyo aad uga xumahay saaxiibkay sharmaake arrintan hadeertaa maaragtay haysato ama hadda waxaa daawanaya waa ka xumahay waa sax qadarka wuu jiraa laakiin wallahi waa ka xumahay mala jecleen labadooda saan lama jecleen aad iyo aad uga xumahay I hate social media life I hate for being famous Soomaali Maxamed horta inta xanta jecel waan salaamayaa waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiimna ila noqotay inaan ka hadlo horta ilaahay adduunkan wuxuu u weyneeyey oo u balaariyey in ay dadkiisa ku kan nabad galaan muslim iyo gaal inta uu abuurtay su-aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd sharmaake iyo malyuun ma kala tageen horta aniga malyuun si sharaf leh aan isu guursanay maanta si sharaf leh kala tagnay weliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas aysan soo bixin ka hor aan ayada kala dhammaanay laakiin arrinkeena social media ma keenin haddana daruuri way ila noqotay inaan hadeertaan dadka u sheegaa wax qalada kuma kala tagin gabar wanaagsan oo isqabna walaashay ahayd kala fanaanka sharmaboy الله يعزك sharmaboy anyway aad iyo aad uga xumahay wax kale allah يعزك kuma dhaayo the way quruxda badan u hadashay waa dhihi kartaa gabadheydii waa kala tagnay maadaama gabadhaadu ay ahayd iyadana gabar caana oo fanaanad ah mararka qaar ay dhacaysay haba yaraatee inta badan inaad meel kasoo wada muuqataan guri idin dhisnaa calafku wuu jiraa qadartana waa ay jirtaa labadaba waa in lagu qancaa
soo sharmaaka sheegayna dee furiinka waa u jiraa fideogii haddaa idinku sheegayay oo diiniyan iyo mid maaragtay dhaqan ahaan soomaalinimo dhaqankaan haysano iyo diiniyan diinteena suuban wadadeena faraysaba furiinku waa u jiraa nolosha social mediahana waxaan ku dhahayo I hate social media life waxaa ka mid ah markii xanuun uu ku gaaro nacitaanka inaad nacdid in aad tahay qof caan ah waxay keliya kugu imaanaysaa waqti adag markii aad geshid inta kale ma dareemi kartid like dhuucil xun oo beef idin dhex mara iyo mid caanimo raadinayo kaa daba wahwaale iyo waxaas ma ahan waxaad dareemaysaa caanimada dhibka ee leedahay markii ay ku qabsato problem dhan family run ahaantii markaasaad dareemaysaa waa sababta hadeertaan aan moor u qiireysanayo waayo labadoodaba aad baa u ixtiraami jiray مليون ولا شيء شرماكي ولا الكيجير عاد بان لبدو احترام جري علف كنا وأجرا أن شرماكي وحن كوجبو قاعدين يا سيد القروح بدنا أو قابسة الجبي أهم با لحدين وحيالي وعادي دتكو ويمقلي كران إنا كلا تكتان كلا تجيتان كلا معها وح عيب مركلن كعلنا يا دينيا يدغن أهم با وهو دل البنية labada qof markay isguursadaan macnaheedu ma inta ka dhimanayeen baa la saxeexay inay isdaba taagnaadaan ma aha macnaheedu waxay tahay way isguursadeen way isdoorteen hadday isfahmaanna way wada joogayaan hadday isfahmi waayaanna wado ayaa loo sameeyey taas waa taas laakiin marka aad iyo aad waxumahay wallahi aad iyo aad waxumahay ani ahaanteeda waan ka qiirooday wallahi waana ku naxay bil ramadaan lagu jiraa beenidii ma sheegay aad iyo aad baa wanahay sharmaaka sababtan u dhahayo good job wax fiican sameeyay waxay tahay ninka ragga sidiisaba wax kasta oo dhaco adduunyadan mid un baa ku soo mareenin midaan ku soo mareenin waxay tahay ka soo jiida wuu dhalay adduunka inta saaran tahay naraga data kuma soo marayso balse wax kasta waa ay ku soo marayaan ninka ragga maadaama asaga uu mas'uul ka yahay markii guri uu sameesto aniga balaadan qurbaha taala iyo wasaqdan qurbaha taala maaragtay waxa ay dumarka ka dhaadhiciyaan gaaladan ay naagtu aaminsan tahay ninka inay iyada qabto waxa iga daa laakiin waxaan ka hadlayaa nolosha dhabta ah iyo diiniyan say diinteena nafarayso ragga daanahay inaan dumarkeena mas'uul ka nahay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa maadaama dumarkeena anagu aan mas'uul ka nahay haday timaado in la kala tagana anigu waxaan aad u taageeraa dadka ka gaabsada kala tagitaankoodii guud ahaan isku dhicitaankoodii inay ka sheekeeyaan isdaba galaan labada dhinacba dadka ka gaabiya dadkaas aad baan u taageeraa oo ixtiraama ama caan ha ahaadaan ama yay ahaanin welibana ninka ragga markii ay noqoto in guurkiisii uu ka halaabo ama calafka soo dhamaado oo kale ninka ixtiraama wada cayshka qofka dhexmaray ninkan ragadiga dheh aad iyo aad labada dhinacba waa inay ixtiraamaan عيش إنه وضع أحمر إلى بدوده وعيش كقبنايو إنه مال وحكوده عنين مال وضع سحدين وإن أي احترامان عيش كودي شرعي وضع عنايين يوضع جوج يوضع النماذج اللي وضع النعبة هدي أي كلا تجان وات أفا أي كلا تجان سيد اللي بدوده مركي أي نلاش وذا جايان برايفت وأهد أي عندنا وضع جن حتى فم الكودة هو يضع دي أبود أي نسود حقله إن مركي يقولي كودة نولانا يعني أي واحد لو باهي هي إن مركي أي كلا تجان نوح كستو بحدوده كدحي إن أيجا وكلية أي نسود ضعفن برايفت نايوهات نصبنا ماذا اللي وش يجي قبيل معهن ورهذا نصبنا ما هذا ما قشد وقفك بني آدمك سيدا أو رقمه قفك بني آدمك دخن كيسو ضمن معهن تاسع عليه نصبنا ماذا وأغنى نصبنا ماذا وأغنى قفك ضمن معهن تيسا وحن آد أنا جو أتاجرا نكرجع مالك وجوري كبربرو رنهانتي سكستو نرجو أدقي مالك وجوري كهالله طبعا تراي مرجو إلى سودريسيسا وعادي لكن وحن آد واحترامه وأولي بوجودنا هي نكرجع كجابية deeply inside عن زايد وفافاهنين وعن مارتي لا تجعل من دمرك سيد الشرماك أوكله ولا شيء السجولة نكاس نرجع وغنا ونكون بوجودنا هي أدي هذا وقح معي شرماك مليون
arrintan hadda social media soo gashay oo aan hadda aniga indhahayga ku daawanayo kuma farxin waa ka xumahay aad iyo aad uga xumahay balse furiinka hadda dhalinyarada kusoo badanaya caanka ah midda keliya aan ka waaninaya waxay tahay weliba ragga aan kula dardaarmayo always ka digtoonow in aad samayso hadduu guri kaa halaabo waxa la yidhaahdo dabagal aarsi ficiltan iyo in aad ka sheekaysid guda ahaan noloshaadii hore inta soo fariisatid isnaa guud aad public ahaan uga sheekaysid na rag waa ninkii guri markuu ka halaabo qofka walaashii ay noqotaa meeshaan uga haraa anyway aad iyo aad uga xumahay tiraanyada iyo mugtana waa la qaybsanayaa labadan qof ee walaalaheena dadkii jeclaa wada joogoodan ka mid ahaa aad iyo aad uga xumahay run ahaan